beerta xayawaanada ee Krugerpark ee Koonfur Afrika ayaa waxaa ka baxsaday 14 libaax oo ka gudbay xuduudda beerta meel u dhow xuduudda ay la wadaagaan Zimbabwe iyo Mozambique. Sida ay qortay jaridda The Guardian, booliska Koonfur Afrika waxay soo saareen digniin ku aadan dadka deegaanada dariska la ah goobta ay libaaxyadu ku baxsadeen. Dadka waxaa lagu baraarujiyay inay si xoog leh uga feejignaadaan maadaama ay xilli kasta la kulmi karaan weeraro dhanka libaaxyada ka soo gaara. Waxa kale oo ay caddeeyeen oo aan ilaa iyo hadda la ogaan habkii ay libaaxyadu ku baxsadeen, laakiin afhayeen u hadlay xukuumadda. Waxa kale oo aan caddayn oo ilaa iyo hadda aan la ogaan habkii ay libaaxyadu ku baxsadeen, laakiin afhayeen u hadlay xukuumadda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka ilaalada duurjoogta ay si gaar ah ugu daba jiraan, iyagoo carabka ku adkeeyay in libaaxyadan la qaban doono oo dib loogu celin doono beertii ay ka soo baxsadeen. Caado ahaan beeraha xayawaankan ee wadaniga ah waxaa ku xeeran silig aad u dheer oo la aaminsan yahay inaanu xayawaanku ka boodi karin kana baxsan karin. Beerta Krugerpark ayaa waxaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay beeraha xayawaanka ugu weyn qaaradda Afrika. Inta badan daafaheeda kala duwan waxaa aad u jooga dalxiisayaal uga kala yimaada daafaha kala duwan ee dunida. Halkan waxaa la tilmaamayaa in badka ay ku fadhido beertan Krugerpark ee Koonfur Afrika ku taala ay gaarayso 5 milyan oo hektar. Waxaa ku nool in ka badan 500 oo nooc oo shimbiro kala duwan ah iyo 147 nooc oo xayawaan naasooley ah.